مراد الأول أما مراد كيكواد وحا سودان كي عثمانيين تا وحلك لقبصدي سنة كيكون صدح بغلي اللحدن كي حلقاس أي دولة عثمانيين تو كتلعبتي دنك إيشيا وأي دولة دو تقارتي قارد يوروب عثمانيين تو حيلا دقالمايين دولة يوروبيانا وبضان وإسباحيستي وكجرتي بيسنديينتي سربيينتي يبلغاريينتي boqortooyooyinka halka ku lahaa dawladihii Kiritaanka ayaa isu bahaystay inay Cusmaaniyiinta ka saaraan Yurub. Dawladahaas ayaa waxay u qaylo wacdeen baabaha Kiritaanka ee joogay Roma si uu ugu booriyo boqoradii Yurubta galbeed inay dagaal xulufaysi ay ku qaadaan Cusmaaniyiinta si looga adkaado oo looga saaro Yurub. Dagaal ay isu soo bahaysteen dawladihii aagaas ka jiray oo ay Serbiyiintu hogaaminayeen ayaa waxa uu ka dhacay aagaas. dagaalkaas ayaa waxaa kala hogaaminayay labada ciidan Muraad Awal oo ahaa suldaankii Cusmaaniyiinta iyo boqorkii Serbiyiinta Lazar Biljanović. dagaalkaas ayaa waxa uu dhacay 1389 waxaana looga adkaaday Serbiyiinta iyo xulafadoodii. boqorkii Serbiyiintana gacanta ayaa lagu dhigay. haddaba suldaankii Cusmaaniyiinta Muraad Awal ayaa waxaa dhacday isagoo maraya goobtii lagu dagaalamay oo fiirinayay dhaawacii iyo askarta ayaa askari Serbiyaana oo iska dhigay inuu dhintay seeftiisa ku dooxay suldaankii. wax yar kadib ayuu halkaasi ku dhintay Muraad Awal. haddaba goortuu dhintay Muraad ayaa waxaa la rabay in lagu aaso suldaanka magaaladii Cusmaaniyiinta caasimadda u ahayd ee aabihiis Orkhan iyo awowgiis Cusmaan ay ku aasan yihiin. laakiin waagaas ma jirin qaboojiyaal iyo wax lagu keydiyo meydka. marka suusan isu bedelin intii jidka lagu sii jiro ayaa waxaa la sameeyay xiidmihiisii iyo mindhiciradiisii waxaa lagu aasay aagii lagu dagaalamay oo ahaa tog ku yaala Kosovo. markaas ayaa jirkiisa intiisa kale loo qaaday caasimadii Bursa la oran jiray oo lagu aasay. saas ayuuna suldaankaas Cusmaaniyiinta ku yeeshay labada qabri oo midkood maanta ku yaalo Kosovo kan kalena uu ku yaalo Turkiga.